السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب waxaan guud ahaan haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeynaya munaasabada xuska maalinta haweenka ee 8 Maarso. Maalintan waa maalin muhiimad weyn inoo leh haddaan nahay haween weynaha adduunka si gaar ah haweenka Soomaaliyeed. Waana maalin la xuso lana soo bandhigo doorka muhiimka ah ee dumarku ay kaga jiraan nolosha aadanaha. waxaan munaasabadan awgeed dhiirigelin iyo bogaadin u darayaa hooyada Soomaaliyeed ee xoolaha raacaysa miyiga fog ee u xanaanayso lafdhabarta dhaqaalaha dalkeena. waxaan dhiirigelin u darayaa hooyada Soomaaliyeed ee hadda u taagan beer falidda si ay u soo saarto dalagyada ay nuquudan lahayd laga soo bilaabo waqtigii xornimada dalkeena iyo ka horba. haweenka Soomaaliyeed waxay udub dhaxaad u ahaayeen halgamadii kala duwanaa ee aynu soo galnay markii ay dagaalada sokoye ka dhaceen dalkeena. hooyooyinka Soomaaliyeed geesiyaasha ah kuwa ubadkooda ku koriyay agoonnimo iyaga oo ka saaray jaamacadaha adduunka kuwa ugu fiican. sidoo kale waxaa xaqiiq ah la isla wada qirsan yahay in haweenka Soomaaliyeed ay door lixaad leh qaateen dawlad dhiskii dalkeena iyo sidii uu qarankeena dib ugu cawdi istaagi lahaa. halgankaas adag ee ay haweenka Soomaaliyeed ugu jireen dawlad dhiska iyo badbaadinta dalka iyo dalka Soomaaliyeed waxaa barbar socda daruufaha adag ee ay la kulmaan haweenka. duruufahaas oo ay ugu horeeyaan xuquuqda jinsiga, kufsiga, gudniinka fircooniga iyo daryeel la'aanta caafimaad. dhibaatooyinkaas ay la kulmaan haweenka marna kama hor istaagaan doorkooda muhiimka ah ay bulshadooda ugu jiraan. marwa ahaan waxaan dadaal xooggan ku bixiyay sidii aan wax uga qaban lahaa caqabadaha haysta haweenka Soomaaliyeed anigoo garab ka helayo gabdhaha walaalahay ah ee Soomaaliyeed. sanadihii koobnaa ee aasaasneed hay'adda samafalka Saynam Cali Foundation waxaan dadaal xooggan ku bixinay wax ka qabashada baahiyaha kala duwan ee qabato bulshadeena si gaar ah baahiyada caafimaadka haysata haweenka iyo dhallaanka Soomaaliyeed. waxaanu xarumo caafimaad oo lagu adeego hooyada iyo dhallaanka ka hirgeliyay qaar ka mid ah gobollada dalka. haddii aynu nahay haweenka Soomaaliyeed waxaana laga doonayaa inaan midowno oo hal noqono. waxaan gabdhaha Soomaaliyeed ee ku biiray labada gole ee baarlamaanka idinku boorinaya kuwa u qareema haweenka Soomaaliyeed waxaa ku soo baxdaan waa qoondadii dumarka iyo matalaadda haweenka Soomaaliyeed oo dhan. waajibkaas ayaa idin saaran gabdhaha annaga adinka naga mas'uul ah. waxaan uga faa'iideysanayaa arrintan maalinta weyn inaan baaq u jeediyo haween weynaha Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda meel kasta joogaan abaarta dalka ka jirta ee saameynta ku yeeshay dadkeena danta yarta ah. waxaan halkan kaga baaqayaa inaan u istaagno sida aan isu kaashan lahayn sidii aan weligeenba gacmaha isku qabsan jirnay kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga. sida aan ognahay dhibaato haddii ay dhacdo waxaan nahay kuwa aan u kala harin. ugu dambeyn waxaan halkan bogaadin iyo duco ugu jeedinayaa gabar walba oo Soomaaliyeed oo ka qayb qaadatay halganka lagu horumarinayo hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed, dawladnimada iyo horumarinta